wasiirka madaxtooyada Soomaaliland waxa uu markii ugu horeysay sheegay in madaxweyne Siraaye dabadi uu saaxiibadii kala tasho doono kursiga madaxtinimo ee xisbiga kulmiye. wasiir xilsi waxa uu sidoo kale tilmaamay in saameyntiisa musharaxnimo haddii uu ku dhawaaqi lahaa Soomaaliland laga dareemi lahaa. wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa duray hadal dhawaan ka soo yeedhay boqor Cismaan oo Buurmadow kaasi oo boqorku ku sheegay in xirsi iyo waliba wasiirka duulista hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi midkoodna aanu han musharaxnimo lahayn. boqorku waxa weeye waxa kamid yahay boqorada Soomaaliland laakiinse waxa markay timaado siyaasaddu waxay noo sameeysan xisbiye reer Roomayn sameeysan reer waxaan ka guur ugu talagalay in xisbiye u sameeysan marka waxa la isku weydiiyaa fagaarayaasha siyaasadda gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo waxa weeye baa la isku hayaayo ani maxamed saaxiib baan isbaahayno gudoomiyaha xisbiga anigu imka uma sharxinayo nin u sharxan meehi mudane wasiir xilsi jacayl xasan aad ma santay magaca waxa saalim buur soo shacab yahay ku mideen doonayaan si kala ugu mudoonkii gudoomiye waxa soo baxay oo siyaasadda Soomaaliland ka kamid isticmaaliyay Siraaye dabadi waa sharaxanahay aan si toos ku weydiiyay madaxweyne Axmed Siraaye dabadi ma sharaxantay madaxweyne Siraaye dabadi waxaan ku yiri hadalkaaban hore ugu daray hadii insha Allah taala waqtiga aynu gaarno waqti baa inaga xiga waxaana leeyahay 2 weeks in politics is too long laba week oo siyaasadda waqti aad u dheer wax dhici doona Ilaahay baa yaqaan maalinta wixii jooga markaan la tashado asxaabtayda iyo ragga siyaasadda waxaan wadaagno iyo dabcan madaxweynahayga kale aan la tashaday wixii tala aan wadaagno la tashado waxaan yeeli doonaa intaas sheegay wasiir walbaanta qaar waxay maalmihii gudbiyay sheegayeen in adiga xirsi jacayl xasan magaalooyinka Burciyaha Hargeysa ka bilowday kulamahanka aad ku soo bandhigayso madaxweyne Siraaye dabadi arrinkaas madaxweyne Siraaye dabadi ma jira waxaan filayo reer Soomaaliland way taqaan xamso adna way taqaan nin campaign guriga ku dhuunta meeyay adaan campaign galayo waan cadeeyaa markan campaign-ka galana saqadaydu aad bay weeyntay meeyay dadka saqadooda hooseyso ama saameyntoodu yarta. wasiirka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa warfidiyeenka uga warbixiyay safar uu ugu baxay dalka dibadiisa waxaanu wasiirka oo arintaasi ka hadlayay yiri sida tan waxaan maanta u baxay safar kooban oo aan ku tagay Addis Ababa waxay kaga horeeyay wasiirka khaarijiga balan baan ku leenahay dawladda Itoobiya wasiirka kamida sida wasiirka finance iyo wasiirka howlaha guud iyo wadooyinka wasiiradaas oo kala hadli doona insha Allah taala berbera corridor iyo wadadii programkii wadada berbera corridor aan ka wada hadli doono oo shirarkeedu muddo dheer socdeen shirkaas baan kaga qayb gelayaa insha Allah taala halka ku kulmi doona Patrick Osaar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.